shirweynaha urur siyaasadeedka mideeye oo maanta ka dhacay xarunta jaamacadda bariga Afrika ee magaalada Garowe waxaa ka soo qayb galay ergooyin ka kala yimi 9 gobol ee Puntland kuwaasoo tiro ahaan gaaraya 460 qof siyaasiyiin Puntland ah oo kamid ah asaasayaasha ururka mideeye. Cabdinaasir Cismaan Cawke wasiirka hore ee wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sharaxaya xeerarka urur siyaasadeedka mideeye. golaha dhexe waa hay'adda ugu sarreysa ansixisana sharciyada dastuuriga iyo shirweynuhu wuxuu soo saaro wuxuu gaaro go'aamada wuxuu doortaa guddoonka oo afar ka kooban fulinta guddiga fulinta qorsheeyaana howlaha ururka wuxuu doortaa murashaxiinta u tartamaysa ururka xilka madaxweynaha waxa dooranaya guddigaas xubinnimada qofka xubin soo galaya waxa la marinayaa ka industry wax dhaaro kala buugay ku taala waa arki doontaan idinka akhriya markuu ogolaado nuur ka mid noqdo foom buu saxiixaya ka bacdina wuxuu qirayaa inuu xubinta ururka yahay isagoo saxiixaya dhaartaas xuquuqda iyo waajibaadka luminta xubinnimada وحبنimada waxay xuquuq u leedahay in la dooran karo waxay ka qayb galaan qodobada karaan tashi iyo ficilba dhaqangelinta sharciyada ururka inuu helo lana socdo warbixinta ururka soo jeedin karo dhaliilaha wax dhiska ah inuu soo gudbin karo hindise ama cabasho ka socota maamulka si waafaqsan habraaca ururka. siyaasi cali xaaji warsame kana mid ah asaasayaasha ururka ayaa sheegay in urur siyaasadeedku mideeye u taagan yahay ilaalinta dhaqanka suuban ee diinteena isla markaasna uu ka shaqeyn doono mideynta dalka iyo dadka. mideeye waa urur siyaasadeed u taagan ilaalinta iyo dhaqanka mabaadi'da iyo qiyamka ummadda kuna shaqeynaya nidaamka dastuuriga ah ee Puntland isagoo ka qayb qaadanaya yagleelida Puntland tala wadaag ah wadada loo marayana ay tahay sixidda maamulka sugidda amniga bixinta adeegga bulshada kobcinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqa caqabada ku noqday dowladnimada Puntland. haddaba mabaadi'da guud sida horena u maqasheen ee ururkaani ay ku dhisan yahay iyo ujeedooyinkiisu waxaa asaas u ah kow diinta islaamka waa asaaska qaabnololeedka ummadda Soomaaliyeed iyo saldhigga qawaaniinta dalka sida ku cad dastuurka sharci kasta oo khilaafsan shareecadana waxaa laga soo qaadayaa waxba kama jiraan. daahir xaaji khaliif gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee urur siyaasadeedka mideeye ayaa ka warbixiyay muddadii uu ururku jiray qaababkii uu soo shaqeeyay iyo ahdaaftiisa. asaaska urur siyaasadeedka mideeye kuma iman talo hal qof iyo mid kooxeed ee wuxuu ku yimi wada tashi wax isweydiin iyo qorshe dheer oo himilooyin iyo higsiyo leh. ururka waxaa loo sameeyey himilooyin higsi iyo qorshe siyaasadeed oo uu ku meel mariyo ujeedooyinka ururka kuwaas oo loo kala qaybiyey qorshaha xilliga dhow kan dhexe iyo qorshaha xilliga fog. higsiga ururka mideeye waa howlgelidda sidii loo heli lahaa shacab walaal ah oo midaysan ilaalinta midnimada dad iyo dhuleed ee Puntland in la taageero nidaam cadaalad ah oo ummadda u dhaxaysa himilooyinka ururka ku dhaqanka mabaadi'da diinta islaamka dhaqanka suuban ee ummadda Soomaaliyeed in cadaalad iyo sinaan loo sameeyo dhammaan xubnaha bulshada. ergada shirweynaha ururka mideeye ayaa maanta cod gacantaaga ku ansixiyay xeerka ururka oo loo qaybiyay waxaana ay sidoo kale ergadu ansixisay golaha dhexe ee ururka mideeye oo ka kooban 174 xubnood kuwaasoo maalinta bari ah dooran doona
guddoonka golaha dhexe sidaasi waxa Puntland TV u sheegay Sheekh Liibaan oo ah gudoomiyaha maamulka shirweynaha ee urur siyaasadeedka Mideeye maantay waxa noo qabsoomay shirweyne aad weyn alxamdulillah oo boqolaal ergey ay ka soo qayb gashay oo gobolada kala duwan ee Puntland yimaadeen oo ah urur siyaasadeedka Mideeye oo maantay oo 18 bisha shirweynihiisa u bilowday bari oo 19 kan uu ku xigi doono hadduu aleedmo saas aad arkayseen bay ahaayeen labeyntii Puntland siyaasiyiintii Puntland madaxdii hore Puntland kuwa hadeer kuwa mustaqbalka haweenkii iyo dumarkii inta maanta waa ka soo qayb galeen si weyn oo qurux badan buu shirkaas maanta noogu dhacay alxamdulillah rabbil caalamiin Suwayska Cayte warbaahinta dawladda Garowe.